waxaa jira inta badan dad waxaa la maqlaa qurbaha caruurta la qaataa qofka waalidka cabanaya caruurtii oo laga qaatay arrintaasoo soo noqnoqota oo dhibaato iyo culays badanna ku keentay waalidiin badan oo ay caruurtii ku tabcayeen caruurta eeganayeen ubadkii ay tacabka gelinayeen laga qaatay arrintaasina ay dhib weyn tahay caruurtana waxaa qaadanaya dowladdu hay-ada u xil saartay wadamada reer galbeedka wey dowladdu hay-ada u xil saartay marka inta badan waxay ka imanaysaa laba siyaabo badan bay ku timaadaa waxa ugu weyn waa dayac ka yimi xagga waalidka waxaa loo cuskadaa inta badan lagu eedeeyaa waalidkaasi waa unfit parent ama waa waalid aan u qalmin inuu caruurta xaqooda mariyo inuu caruurta ilaaliyo inuu caruurta daryeelo inuu caruurta koriyo marka waa waalid aan u diyaarsanayn inuu ilmaha xuquuqdiisa ilaaliyo ilmaha daryeelo waa qodoba isticmaalaan marka waalidiinta qaar waxaa ku dhacaas mararka qaar waalidkii oon dhaqankii garanayn deegaankii aan garanayn contextka meeshii aan si fiican u garanayn waalidkii oon afkii garanayn shuruucdii garanayn shuruucdani waxay faraysaa maxaa saxoo waalidka looga baahan inuu ilaaliyo ayaa arrintani ku dhacaysa tusaale yar baan soo qaadanayaa maalin maalmaha ka mid a ayaan xanaanada caruurta waxaan geeyey inaan ka mid a caruurtayada ilaahay baa wax leh markaasa sibay u yar xanaaqsaneed maalinta marka waa ilmo yar 5 jir sibay u yar xanaaqsaneed waxbay diidanayd waxbay aada u dhibsanaysay aniguna waan degdegsanaa waqtiba maan haynba marka waa xaween dee mararka qaar waxay kalifisaan maha intaad dhigto inaad koorka haddii maryaha kabaha waxaa laga bixiyo deedna gudaha la geliyo waa sii macasalaameeyey qof meesha ka shaqeeyo kadinka taagan isaga loo macasalaameeye laakiin weli ilmihii jawgiisii ayaa xidhnaayo farxad muu lahayn raynrayn muu lahayn way markaa kasoo la xidhanaysa hadhow toole iyagaa energy ku isticmaalaya ilmihiina ka farxiyaan in loo farfadhiisto marka waxay igu soo dhacday markan dibadda sii socdo ilmahaaga adigu u farfadhiiso oo ka farxi inta qof kale u farfadhiisan lahaa oo ka farxin lahaa waan soo noqday marka qof ka mid a shaqaalihii dul taagan oo ilmihii yaraa la hadlaya baan u imi waxa ku raallihow anaa la hadlaya baan ku yidhi markaan dhammeeyo arrintaas ee aan xalliyo bar idinkeeniyo idinku oduu faraha ka qaad marka ilmihii yaraa baan la fadhiistay aba maxaa sida u jiraan waan ka farxiyey oo waan la sheekaystay waan u dejiyey waxay noqotay inaan anigu habsaamo marka qaacidada waxaan isticmaalay ilmahaaga inta loo farfadhiisan lahaa adigu u farfadhiiso oo ka farxi ilmaha dareenkiisa bedel wax aad bay u yar tahay wax yaroo ilmuhu waxaa dhici karta jawiga iyo muurka ilmaha xidhani inuu iyaga ku kalifo inuu waqti badan ku isticmaalaan oo hadhow toolana way ilmahaagiba aad loo kasbanaya qofkan ilmaha yar wuxuu yar dareemayaa waalidka dhalay in qofkan kale uga naxariis iyo kalgacal badan yahay qofkan waa shaqaale soo shaqo tegay wuxuu ku khasban yahay si kasta oo uu dabeecad xun yahay si kasta oo inuu qarsado waa ilmo qof lagu soo tababaray habdhaqanka caruurta psychologiga la xidhiidha habdhaqanka caruurta si ilmaha looga farxiyo looga sheekaysiyo wax looga dhaadhiciyo marka taladeeda waxay tahay marka marar badan waxaan isticmaalay culays kasta oo ku haysta iyo xaalad kastoo adigood ku jirto waxaa ka mudan ilmahaaga inaad u muujiso naxariis iyo dabacsan inagaadoo dhaqankan waa adag war waxaan mahani is-adkee qofkan muxuu laakiin wadamada westernka inta badan waa habdhaqanka aad bay uga duwan yihiin waxaad arkaysaa waalid aan ku arkayno intuu halkan naqaskas ka guraya waa uu cadhaysan yahay waxa weeyaan ilmihii yaraabuu la hadlayaa maanta oo dhan adiguna waqtigaa ma haysid gacantaad qabsanaysaa xidho marada isagoo laakiin wanaag taagnaado koorka xidho kabahana xidho markaasaa ilmi yaraa baa warwareegayo kulba dhex iska eegayo iska ciyaarayo laakiin innaga waad soo qabanaysaa marka taasoo kale iyadu dee waxa weeyaan ilmaha inaad caawiso laakiin awood isticmaalista iyo marka xadhe ilmihii waa la wareysanayaa markasta waxbaa la weydiinayaa dhakhtarkii baa wareysanaya iskuulkaa wareysanaya xanaanadaa wareysanaya waa meelmaha xogta laga ururiya la xidhiidha caruurta xogaha qaarna waa xoga qalado misunderstanding ah oo fahan la-aan ah
xogaha qaarna waa xoga sax ah. marka waalidka is adkeeya waalidka is og ee khaladaad sameeya hadduu is iraahdo ka dhuuma khaladkaad samaysay, waa waalidkay la kacda hadhow ay galaafato. laakiin waalidka runta ku dhinta iyo magaranaysa waxaan inaanu fahansaneyn. waalidiin badan ee codsada in la caawiyo ee sheegaan intii awoodiisa inuu qabanayay, waa la caawiyaa waalidkaana. marka waqtigu heer sare haydin haado, waxaa aada u muhiima dadka wacyigoodu inuu soo jeedo waa loo feejignaado. waa cabdishukuur maxamed muuse ku dhaafiya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.